ومن أول العمارة البناء للمسجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله سبحانه وتعالى له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي الرواية: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قبات بنى الله له بيتا في الجنة. هنيئا لكم أيها المشتاقون إلى الجنان، يا من يريد قصورا في الجنان، ويا من يريد أنهارا في الجنان، ويا من يريد الحور العين في الجنان. اغتنم هذه الفرص الذهبية في فضل بناء هذا المسجد الذي أسسه وبناه أول مرة حاج قرشال من سلوكه وماله ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. الحمد لله إله ومعبد سبحانه وتعالى بيت من بيوت الله تعالى نوكلي بغيرك أرناد الناس وخيرك بدنادي ما كمل إله نوكلي. مسجد كان وادي جيدان ومسجد، لكن أسوأ المسجد هدنا سيدة أرطى والبحنة اللي وشاهدين ماشي وكيا لإيه ولا عبد معي وكيا لا حافظ اللي هذه عاش بيها صانع عاش بيها وكبترسن ديوانهان مغالبة أفقوية كترسن وما بحيسا مغالبة مغدوشي إيه أفقوية ومسجد ير والله سوء أساسي haddana la doonayo maadaama dadkii muslimiinta ahayd oo ku dukanayay oo qur-aanka ku akhrisanayay oo ku ictikaafayay masjidka uu ku yaraaday in la ballaariyo oo dadka muslimiinta loo waasiciyo ayaa la doonayaa. masjidkan masjid raxmaana oo halkan ku yaala waxaan ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed in qof walba uu camalkaas khayriga ah ودنيا آخرة إلهي وبركينا إنه كقيب قاته. مركز مسجد كبسمديس ضد أشخاص كما قومنا دلك سوماليات إلي كنول يوهي دبدا كنول أو سوماليا أو رجل أو دمر لا وعليه بعي هايوين يسيد دقدقى مسجد كان وقيب قاتان أو أنه أرقنه سيدا واحد بدن بس وجهته هذا نص عطاه مساجد آدي يايين أيان لقد سي بالكان magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda ayaa laga dhisay oo dadka Soomaaliyeed dal iyo dibadba ay ka qayb qaateen. haddana mar walba khayrka waa loo baahan yahay. la yashba'u al-mu'minu min khayrin hatta yakuna muntaha wal-janna ila rasuulku. qofka mu'minka khayr ka midhirgo ilaa jannada Ilaahay uga gaarayo. oo qofka shalay masjid dhisay oo saasbiin ayuu masjid aaba dhisay way ku dhamaatay. dadka hore masjid u dhisay haddana waa inuu khayrka sii badsadaa. ilaahay ziyaado ayuu doonayaa ee ilaahay nuqsaan ma doonayo. alxamdulilah walaalayaal ugu horreyntii ilaahay subxaanahu watacaala ayaan uga mahad celinaynaa masjidkan barakaysan. masjidkan marka walaalayaal kelimadii munaasibka ahayd si wanaagsan oo dhammaystiran waxaa inooga hadlay shaykhuna alcallaama sheekh maxamuud cabdulla cariif oo si faahfaahsan kelimadii inoogu soo jeediyey. beydkan masjidkan ku yaalla deegaanka ceelasha biyaha ku yaalla waad arkaysaan masjidku waa masjid ciriiri ah
waxaa la doonayaa dhulkiisa dhammaan in lagu waasiciyo waa dhul ballaaran ayuu masjidku leeyahay oo hinti barhinti ah ayuu ku fadhiyaa weliba sida aan jecelnahay ilaahu hadduu naga aqbalo waa in dabaq laga dhiso oo masjidka maaragtaa dabaq laga dhiso la shugo waan jecelnahay hadduu ilaahu ogolaado biidni illaahi tacaala ilaahuna uu noo fududayn doonaa biidni illaahi tacaala masaajidkaas marka waxaan doonaynaa marka walaalayaal inaanu dhexda u xiranno qofkii maaragtaahay goofafkan boosas ku leh inuu maaragtaahay dhowr boos u soo iibiyo oo ilaahay dartiis uu maaragtaahay u baxsado oo beydkaa ilaahay uu ku sadaqaysto qofkii maaragtaahay $1 heli kara qofkii $10,000 heli kara $100 qofkii heli kara hal senti hal kun oo shilin Soomaaliya qofkii heli kara inaan dhammaan aan maaragtaa ka faa'iidaysano waa koon noo furan waa fursad qaali ah oo dahabi ah oo inoo furan oo maamulka oo masaajidka iyo deegaanka afkoodana ku hadlaayo masaajidka marxalo badan ayuu soo maray haddana wuxuu taagan yahay marxaladii oo lagu weynay lahaa waxaan ka codsanaynaa dadweynaha dal iyo dibadba inaa akoonkooda iyo jeebabkooda iyo noo furaan ee masaajidka noo weeyaan noona waasiciyaan wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu